sheekada ugu badan ee Soomaalidu ka sheekaysaa waxtar ma leh siyaasadda iyo qabiilka iyo reeraha iyo waxa laga sheekayo dhan waxtar ma leh badaa iyo ciyaaraha iyo wax la daawado dhan waxtar ma leh wararkan habeen iyo maalinba la dhageysanaya la wado intooda badan waxtar ma leh wax badan aan waxtar lahayn baa dadku waqtigiisa ku qaado nabiguna wuxuu tilmaamayaa min xusni islaami almar'i tarkuhu ma la yacni qofka muslimka islaamnimadiisa wanaageeda waxaa ka mid ah isagoo ka taga waxaan macno u samaynayn qofka cibaadaysta ee ilaahay xidhiir fiican la yeesha ee salaadiisu ay hagaagto ee cibaadadiisa ilaahay aqbalo shan nicmadood baa ilaahay adduunka dusheeda uu ku siiyaa nuurun fi lqalbi buu qalbigiisa ilaahay nuur buu dhex dhigaa wadiyaa'un fi lwajhi wejigiisana iftiin baa ka baxa wa quwatan fi lbadani jirhkiisana ilaahay quwadiyo xoog buu geliyaa wasicatan fi risqi arsaaqadiisana ilaahay baa u waasiciyo u barakeeya wamaxabatan fi quluubi alkhalqi khalqigoo dhanna ilaahay qalbigooda kalgacayl baa ilaahay u geliyaa ku ducaysa walaal nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa ku baraayo ma jeceshahay inaad jannada gashid waxaa dhahdaa allaahumma aslamtu nafsii ilayka wafawwadtu amrii ilayka وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت لو ذاك ولا هذا كالته سوى سجن أوقفا إيدستو ولا كلا تجي دونا كوحنا جنة آدي دونتا كوحنا نار آدي دونتا ما قرنا يا أنيجا يا أدوغو تونا متكنا مشوا آدي دونه لكن أسباب الله ينوشة جاي نار تلوجا بدبادو سبب الله يقول نار قالنا والله ينوشة جاي نبي قال سؤال لو يديه وحال الجنة محاو بدن الله يقول حلاي الله يقول قلا تقوى الله وحسن الخلق طبيعة وناجي يا الله كعبس بالله يقول قلا أقول النبي عليه الصلاة والسلام النبي يقول إنك مركو السوق قليو يراهضه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير انت وعدا انك إلى ذلك السوق قليل 1 مليون أجر ولا قرية 1 مليون سيئة ولا قرية قرينا الجنة الله قد سيئة النبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدوك دشيد لا إله إلا الله إهل كيك النقضة الله ينقدقه قبرك مركي قلان كوكليوب مايان مالك قيامها مركي صوبحان حسردي الندامية مرق لي أركي مايان سؤالك ويديريا وحوي واحد شيء ساشان صورات أو كم إذا قرآن كإلهي أو قل بلا ما قل كلمة قل بسم الله الرحمن الرحيم صدح سورة معودتك قل هو الله واحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أوحي إلي قل أوحي إلي مدبك وهدي مدبك سماها إن شاء الله صدحني معوذات نوات شيكتي قل أوحي نوات شيكتي مدبك وهدي إن شاء الله قل يا أيها الكافرون الله أكبر التكبير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wuxuu yiri kuwa ilaahay dartiis ku jeclaada waxay harsan doonaan carshiga maalin uusan jirin harka ilaahay ma ahane nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxa uu tilmaamay qofka weysaysta ee weysada wanaajiya dabeetana yiraahda ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin qofka inta ay rasuulka rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu ku weysaysta kadib waxa loo furaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu yiri albaabada jannada ee sideeda waxaanu ka galaa kii uu doono rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khayra yawmin tala'at alayhi ash-shams yawm al-jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri maalin ay soo baxdo qoraxda waxa uu wanaagsan maalin jimcaha sababtoo ah maalinta jimcaha ah waxa la awoodaa bani aadam isla maalin jimcaha isla maalin jimcaha ayaa aadam alayhi salaam laga soo saaray jannada rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay maalinta uu wanaagsan ee maalmaha ilaahay subhanahu wa ta'ala